faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac geysto oo ka dhacay maanta degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. wararka naga soo gaaraya degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose waxay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed iyo kuwa militariga Soomaaliya. dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan oo ku jiro hubka culus, waxaana la sheegay in ciidamadii halkaasi ku dagaalamay ay ahaayeen kuwo abaabulan hab beeleed. saacadihii la soo dhaafay waxaa la tilmaamay in magaalada Baraawe laga dareemayay xiisada u dhaxaysa ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed oo dhawaan laga qaaday magaalada Beedhabo iyo kuwa militariga oo weligood ku sugnaa degmadaasi. ilaa iyo 4 askari ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen israsaaseynta dhaxmartay ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa militariga Soomaaliya, waxaana xiran inta badan goobaha ganacsi ee magaalada Baraawe. dagaalkan waxaa la sheegay dagaalkan ayaa la tilmaamay markiisii hore uu ka dhashay iska qabsi dhul oo isku bedelay in dagaalku habbeeleed oo u dhaxmaro ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa militariga Soomaaliya. ma jiraan ilaa hadda wax war oo ka soo baxay taliska militariga Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo ku aadan shaqaaqada iyo dagaalka halkaasi ku dhaxmaray ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa militariga Soomaaliya. xaaladda magaalada Baraawe ayaa caawa degan iyadoo dadka deegaanka ay ka cabsi qabaan in mar kale dushooda lagu dagaalamo.